haddii kasi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay haddii kasi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay siyaasiga aan baxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idil ahaantiin baddaawadayaal meel kasta oo uu idinka soo gaadhaya muuqaalka barnaamijkani kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ka diyaarinay mashaariicdii kala duwaneed ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland xadhigga uga jaray dekedda caalamiga ee Berbera Port. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay dekedda mashaariic horumarineed oo yana la filayay inay hirgalaan sanadkan 2015. ugu horeyntiina waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland xadhigga ka jaray barxad cusub oo maamulka dekedda Berberi ku soo kordhiyeen ballaarinta dekedda Berbera. way shaqaalaha waxa kala duwan ee dekeddu ay ku dhiseen habiska wax u qabsaa taasoo loogu talagalay in la dhigo konteenarada marka ay ka soo degaan markabka. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xadhigga ka jaray qalab gaadiid casri oo ay maamulka dekedda Berberi la soo degeen sanadii 2014 kuwaas oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo wiishash iyo gaadiidyo kale. intii uu madaxweynaha Somaliland ku sugnaa dekedda caalamiga ee Berbera Port sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ka dhagax dhigay dekedda Berbera barxad cusub oo yana loogu talagalay in la dhigo konteenarada marka ay ka soo degaan markabka oo laga hirgelin doono dekedda caalamiga ee Berbera Port. waxaana si wada jira dhagax dhigaas ay u wada dhigeen madaxweynaha Somaliland iyo maamulka dekedda Berbera. intaasi kadib markii uu madaxweynaha Somaliland uu xadhigga ka jaray mashaariicdani ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay daafurka barxadani cusub ee lagu soo kordhiyay dekedda Berbera. waxaana munaasabadaasi oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ay si wada jira uga qayb galeen maamulka gobolka Saaxil, kuwa degmada Berbera, mas'uuliyiinta dekedda caalamiga ee Berbera Port iyo waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha Somaliland oo ay waftigiisa ku wehelinayeen raxan kamid ah wasiiradiisa. Somaliland ganacsatada shaqaale weynaha dawladda waxa maanta inoo sharafa in madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland baalkayna la jooga wuxuu inoo farayaa container terminalki aynu sameeyay berigii dhaweeyay shaqaaluhuna ay aad iyo aad uga qayb galaan oo mahadnaqayo madaxweyne qaybtani waa qaybtii ugu horreysay waa 2 hectare weeyaan imika intan aynu furaynaa waxaanu ku daraynaa oo dhagax soo dhigtay imikaana waxay ahayd 7 hectare oo kale waxay qaadi doonaan ilaa 8 kilo container oo buux iyo faaruq buuxa iyo 8 kilo kale oo faaruqa ay qaadi doonaan haddii la yiraahdo
hadalka xagga dambaan ka sheegi doonaa waxaan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne inaad noo furto aad ku ducayso insha allahu tacaala mustaqbalka inay ahaato wax waxtare oo loo aayo إن شاء الله إلهي حكبر يرون نقول فينا واحترى دلك يدلك واحترى إن شاء الله تعالى آمين دكدها بربر دخليجه هذا إيو دولار كيكه طيبة دولار كيكه طيبة هذا الكلام وديسا هدي قسي سما وضو صفها ويا أرقستان سويالك كم وقودا وعن إنا تهي والله صحي لا صحي إنا تهي والله صحي هدي قسي سما وضو صفها ويا أرقستان سويالك كم وقودا وعن إنا تهي والله صحي لا صحي إنا تهي والله صحي siyaasiga caan baxo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحين شرف مدحوينه aniga iyo shaqaaleyda maalka dadweynaha reer bari manaafacaad sida dekeda dadka reer Soomaaliland iyo ganacsatada waa in halkan laga soo qayb gasho xadhigka jarista qalabkii aanu soo iibinay inuu ka shaqeeyo dhismaha dekeda cusub qaybta labaad dekeda cusub iyo qalabkii laga shaqeeyay konteynarada keenayay ka soo qaaday badda ka soo qaaday dekeda ka soo qaaday terminalka keenayay qalabkan waxaan ku soo iibinay lacagta dekeda dhammaanteedna waxaan soo iibinay intii ka dambeysay March sanadkii hore intii ka dambeysay waan soo iibinay qaar kalena way noo soo socdaan faliya tafadal seer madaxweyne oo nooga jiray ducada dalkeena u soo kordhay weeye ilaahay midna ka faa'iideysano qaranka ummadda wuxuu taraan uga dhigo bismillaah diirano dacada jooga oo la duceeyayo dadku jecel yihiin maamul diirano dacada jooga oo la duceeyayo dadku jecel yihiin الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنت أسلم عليها وأنت حلمها أجدني من الحاجات المهمة سومالان هي تصل هي تصاريه وسيء ضدها هو ذا لا شقينا يا القفل بدر كيسي
آديات معرك الحويوم باسيين الله شقين السابق سنة شرف دليل ما تتكدنا مقاطع وحضرنا يقول كيسيين إن شاء الله خير كيجي شرف دربه يدقه يكيل دورا وعمل لي إنجنير عبد الرحمن إنجنير كدكندا وفافاين النقصي دونا أولا madaxweyne oo soddon sannadood oo dekada berberi ay ka mid ahayd wakaaladii dekadaha Soomaaliyeed ee burburay 1999 baahideeda qalab iyo dhismoba iyagii dekadaha kaleba waxaa lagu leeyahay jiray ururada caalamiga ah iyo dalalka deeqda bixiya sida bangiga adduunka EEC-da USAID-ka danida iyo dalalka ruushka maraykanka denmark talyaaniga iyo kuwa kale may dhici jirin oo may suurtagal may ahaan jirin oo may ahaan jirin in maamulkii wakaaladii dekadaha Soomaaliyeed burburay maalka dakhliga wasoo xawada dekadahooda ka fuliyo barxadan aynu maanta furayno oo kale ama uu ka soo iibiyo qalab la mid ah saddexda kalmeed ee marka la isu geeyo tankoodu leeyahay 150 ka tan mitir mid waa mid ka soo iibiyo may suurtageli jirin mudane madaxweyne 1999 dekada berberi waxaan kala wareegnay saddex wiish laba fooqlid iyo afar tareer wax shaqeeyaba wadasta badeecada dekada ka dhoftay iyo ta ka soo degtay marka la isu geeyo waxay dhamaan 1900 waxay dhamaan 180 oo tan sanadkii exportka keliya xoolaha ka dhooftay dekadu wuxuu ahaa xoolaha nool maamulka dekadu wuxuu ka koobnaa hal waax iyo laba qaybood keliya tirada shaqaalaha si joogtada uga soo shaqo gashay waxay 750 qof oo keliya maanta dekada berberi waxay leedahay 9 wiish oo waaweyn 22 forklift 30 trailer saddex dabdamis oo muddeega dekada ku dhisan yahay oo loogu talagalay maraakiibta dekada ku xiran haddii uu dabqabsado in lagu dabiyo laba ambulance xafaarad aan badda ku qodno dhammaantoodna waxa laga soo iibiyey qalabka iyo kuwa la idin sheegi doonay halka wadiyaal oo dhan dakhliga dekada wax qaado wadada sanadkii imika dekada ka dhoofta iyo kuwa ka soo dega marka la isu geeyo madaxweyne waxay leeyihiin 1 bilyan iyo 300 oo mitir tan marka la wareegay waxa ay xoolaha nool ka soo maanta dekada berberi waxa ka dhoftay beeyo hargo saamo sigaar baytari cilaan iyo qadar jeeral kargoy maamulkii dekada ka koobnaa marka la wareegay halka waax iyo labada qaybood maanta wuxuu kooban yahay 9 waaxood iyo 9 qaybood iyo 9 koodilaaw shaqaalaha sida joogtada dekada berberi maanta uga soo howlgala waxay leeyihiin 900 oo qof waa joogtada keliya mugi ka banaana dekada berberi markaan la wareegnay 1999 wuxuu ahaa 850 mitir square keliya marka laga reebo qaarkood si aan mucdiinka uga dagaalano dekada gudaheeda waxaan hadda ku kordhinaynay barxado cusub oo aanu dhisno iyo qalab cusub oo hor leh oo aanu dibadda uga soo iibino 2009 waxaanu dhisnay barxad cusub oo mugeedu yahay 15,000 oo mitir square waxaanu dhisnay oo hadda yaala konteenada faaruq ah barxadii labaad oo mugeedu dhammaa 750 mitir square waxaanu dhisnay 2011 inaanu dhigno baabuurta soo degta oo hadda taala barxadan aynu maanta joogno oo tii saddexaad oo aanu ku saalaynay badkii hore ee dekada aanu kula wareegnay wuxuu mugeedu leeyahay 24,000 oo mitir square waxaan ugu talagalay inaan dhigno kontuurada faaruq ah oo ilaa hadda 400 ka mid aan dhignay ilaa 100 kale aynu horeen barxadda afraad oo filanay noqon doonto 50,000 oo mitir square mugeedu waa taa maanta madaxweynuhu soo dhagax dhigay ee naga xigta xagga bari xagga galbeed wadarta saddexda barxadood ee aanu ku darnay mugi hore dekada
marka taqabyada laga helo wuxuu leeyahay 690 mitir square 5 milyan kalori 12,000 oo dheeraad ah marina marka laga helo taan bilaabi doon insha Allah mudane madaxweyne waxa xaqiiqadu tahay gacan ku haynta dekada berbera inay dawladdu kula dagaalamayso shaqaalaanta sicir bararka isla markaana ay ku ilaalinayso exportkeena gaar ahaan xoolaha nool inaanu ka bixin suuqyada adduunka waa saddex arrimood oo gacan shisheeye aynan kaga harbixi karin waa aynu u suurtagelin mudane madaxweyne dawlado badan oo ka mid dalalka soo koraya ayaa waxay u arkaan gacan ku haynta dekadahooda inay ku ilaalinayaan qarannimadooda Soomaaliland dalkan waxay sii dheer tahay dekad keliyaanimada iyo aqoonsilaanta caalamka Soomaaliland uma baahna shisheeye dakhliga yar ee ka soo baxay nagu duldhuuqa oo exportkeena suuqyada ka saara oo shaqo la'aan iyo sicir barar inagu keena oo inaga joojiya kaalmooyinka dibadda hadda aynu helo isla markaana ay ganacsatada wadaniga ah ee u bartay adeega jaban ay dekada ka heshaan ay ka leexdaan oo ka kontrabaaniyaan xeebaha dalka cashidaana cashuurtii dowladda ay kula baxsadaan uma baahan intaa inagu abuura shisheeye taa inagu abuura mudane madaxweyne Soomaaliland waxay u baahan tahay maalgeliye sida dekada Djibouti inoo dhisa dekad kale oo cusub oo bari ka maalin inoo hadha oo ka dhisa hansiga ka soo horjeeda dekada oo banaan waxaan hadalkaygu soo gaabinaya dhacdo 1980 ilaa 1980 dhacday xilligaasoo ahaa uu madaxweynaheena maanta Axmed Maxamed oo ahaa wasiirka ganacsiga waana markii lacagtii dekada Berbera lagu talagalay lagu bisaliyay loo wareejiyo bangiga adduunka annagu kamaana warqadooda dekadaha cid aan ahayn oo maanta u guntan oo u dagaalansan lacagtaa la wareejiyey baanan ka wadan subaxda aan idiin sheegi doono wasiirkii dekadaha markaa ahaa Geelle Yuusuf ayaa balan loogu sameeyey madaxweynaha siyaad baraan ku tagay salaad hore ayay waxay la socday Geelle iyo jarankii dekadaha gudoomiyaha ka ahaan jiray oo dhantii cali xaash banaanka waxa ku sugayay sanadkii milyan sii dhaafay markaan Geelle dowladda Geelle madaxweyne waa kan injineer taasoo kacay waxay waan mutay naqshadii baan soo kala bixiyay madaxweyne dekadii Berbera markaan la istaagay ya isiraaya ku soo qeybay annagu isiraaya madaxweyne ismana lugu kuleeyahay kan lama nasay intu islaam xashii taabay saabu ay faytay la kacay ay Geelle ku jeestay iyo tan kale alxas magaasuu ugu raali xas tagada Berbera ka mid qaadkan كما يحمل صار كالك بدو حكاي سيراني هو عاد حل والمدينة بيلدي وعن السعودة أحمد محمد الحمود الحويرنا كما عصبة تاريخ الدكتور بربران وأتوا صباحا لك نور تعاون حنا ولا إلهي مهدي إيه يوم أخذ السنة مدحوين هذا يمكن إن عائلة وحكى يسمعته 4 مليون أو نفر ترجعني كرفان نصيب بنود واحد هذا ما أول ما يدك الصومر ما تقدرنا ما هو بس يدير بقبل الحمد لله وسيري إحنا العلوات شو ملاحظ الدور العلوات شو أنا ودك الدور شونا أنا كسوار النسوي بدأ ما تقدريا الكلام واحد يحكي همين الخيرات بدنا واحد كسر كسران كلام كاريسي واحد كسر سوا عمود كل واريسي واحد كسر شيء صنقص أنت صوب الشعر يدك الدين ذكر إسكوهية واحد بيبتدي يسون كلام البابيانا نواصل مشنا أنا كسر واحد غير المسؤولية وسوار ما عنده ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي بريها أنتوا لا يمكن أن تطلع مكان هذه في قصة الدموع وكان هذا
halkan waxaan ka salaamayaa oo kusoo dhaweynayaa wafdiga sare ee madaxweynuhu hoggaanka ka yahay gobada dharanka wasiirada taliyaasha guuda ciidamada saraakiisha dowladda ee sare sirdoonka qaranka iyo dadweynaha kala jaadka ee kala heerka ee kala da'da iyo shaqaalweynaha dekeda berbera waxaan kala soo dhaweynaynaa asxaabteyda aan wada shaqeyne ee saraakiisha silsileeda gobolka warasaabka ugeeyarka xildhibaanada dhammaantii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan maanta waxaynu soo fukray waxaynu soo dhagax dhignay qayb labaad oo dekeda aynu ku darayno halkan aynu joogno waxaana furayinka intaas halkan aynu furno iyo kulmeynimada iyo qalabka halka yaala waa kii madaxweyne waxaay ka jiray waxaan doonayaa in yar inaan isdiimiyo oo ah maxaa lacagtan loo gelinayaa dadkana loogu hawlayaa farxadda weyne imika aanu degnay konteynerkada ee hadbada hore lagu ley waayey maxay kordhinaysaa waxa weeyaan dekeda berbera kaalkeeda wax soo saarkiisa iyo storagkiisa ayaa dekeda way kala weynaa ayaa kala weynaa waxa weeyaan wax soo saarka kaalka kasoo bixi kara markay badeecadu badan tahay iyo badeecada dekeda ay qaadi kartay ku dagaan kartaa ama dhoofa ahaato ama sodegis ahaato aad iyo aad bay kala badnaay marka waxaan doonayaa inaan heerkeeda u siisayno oo badeecadda inoo timaado inoo soo degtaa inta ugu badan ee dekeda ka degi kartana inaynu istoorgaran karno hawayaan waxaan madaxweyne kula socodsiinayaa adiga iyo wafdigaagaba in marka qaybta labaad ee dekeda qaybta labaad ee marka ay sooyana markay dhammaato in aynu roogi karno oo dejin karno ilaa 15 konteyner bishii inay roogi karno 15 konteyner taabacdina waxay sanadkii وعلينا قوية سنة كي وقوية لحظة كله كنتينر سنة كي نقول كله وبلا هوا واحد كله نقول كنا إلى 6 مليون أورنة فواريا أو أسمع كنا نباتو أما فورا واحد كله سووا كنا أتين بدأ عدا على الهواء لكن السنة يبقى عايتها يدو على التوربين بدأ عد إلى 10 مليون ترى أو كارجود يباقي كارجويا بالنسبة إمك عيونا معناه ما هذا كده هو اللي يراتي وحاولت أقولي إن الكل كان حسنه وطلع شكاسي توبيا إما طلعة إمك سمعنا لو تماتا إمك هاك مرتا عادي أي فلوسها أما كبارات لكن وحاولت أقولي مستقبل كده هذا يعني إن الكل كان حسنه كيف فلسطين تنوينها إثيوبيا هذا على أو دليل دوش تكتب أو هذا على هو تحصل فرمان وصول دولة وأنا هذا نقوم هذا كيا أقول يا كذا بسوا وأنا أقول سيا شغال ولا كذا مرمالك إنه وقت كلامه جلياشا استفادولسكا جلشيتكا موسكاياشا جل بي ورمانتوس كنا يشتغلوا ولا تكتا ورمانتوس كنا يبقى إنه أول درسوا دورنا على هذا إنه كله كعش تيوم كي شغلة بسوا waxaan ku
talagalnay madaxweyne inaanu tani maanta anaga xarigtayna inay sidaasi leeg ay uga shaqeeyaan lacag kuma siino iskaa wuxuu qabso weeye waan ku ammaanayaa waxaana ku dhiirinayaa dadweynaha reer somaliland in barnaamijka iskaa wuxuu qabso ay ka faa'iidaystaan xooga ay la fadhiyaan ay dalkooda ku dhisaan madaxweyne adiga waftigaana waan salaamayaa waxaa kaloo aan salaamayaa wasiiradii aad loogu dhiiriyay hawshan uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada ku horeeyo oo boosno ah wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga iyo dhammaan raggii iskaaga barbartaagay walkii aan shaqadooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu جمهورية الصوماليلاند مروديسا مروديس وزيرنا قيمها له شرف كبار يلا الصودا ترياشا إيجامادا لما أنا يسمعهم الله أما مسؤولين تكره الدولة مدحنا قبلك والباقيتا حلبانا وعلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا المدحوين شرف وين ما يوتاي مات بالبلاء يوم رحنا بكذا حفلة بلالة أي نشوفه وروتي كمينا من كل صوم عليه قيمة بتاعه وحكم ركعيا سيدين تنال عبد الرحمن شيري بكذا مركي المقبسانين نوان شوقي إن بدنا المسؤول كهذا مجال نوان شوقي ما لا يعرف الغرة إن بدنا ما نقول شقين إيش قاريس وحفلها هي ما لا يعرف شقارها حفلتنا وكل عالم كان لك دعوة مريض ولا محلول جري إلي عاون ما هو وتانو كعلى بريم كنتي وطنيا إلي عاونين ووحيسي يتوبوا مصرين كنت كيش بيان هاي قلبات مركا كعان مركا دبا وحيان كنت كيش معلومة حوائي إنو حيان بيان لورد أوخر وقت وحالا قبتي ووحي ودمدو أي سوء عاود جرين وحالا ما هدك يا مدحوينها جمهورية الصوماليلاند إن يتحي برنامج يدي ودرقلك كسمين قبسيساها إنو وحلا قبتو واني كمو متعمل المدحويني مجالة بالبنان وحالا هاي كنت إسلام وخصي شغالها بكده إنجنيرينا ما لا يعرف ورود سيجارة مع صاحبنا هاي هؤلاء بدنا صورهم مرتين قال كروت كيس جاهلا انت هذا الوصف كنت حقنا وحن قرنيا إذا تقولي قلت هاي هاي دقيقة إذا قلت لك تسارية هاي قلت لي قلت هاي ما أنت وحي رميتها هاي بكلاها عالمية الجيران كينا أي وقت تمام وحلني شغالية مسؤولية آلية أيام المعادلة مدحوينها يقول لي سوسيرنا يا بنتي suurtageliya in halkii laga tagama waxa la qabto aad iyo aad ayay u mudan yihiin taariikhda ayaana sheegaysa maanta gobolka farax weyn baa u tahay Somaliland sharaf weyn baa u tahay cidii adag oo ay dekadaasi way arkayaan inay fulayso oo soconayso oo la wacayso waxaan leenahay ilaahay inuu sii wado haynuu sii balaaliyo madaxweynaha iyo waqtigiisa aad baan u baahdayaa wassalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو غير أبا محمد مركو الغابة من آدي الفحن الله لقمدي بالبلاء وهو المركو الله يا مصر تحوامي تكتو مركو عندك قاعدة هارون عندك قاعدة بالبلاء كلها بكت بالبلاء كلها عليها الله مكتر كمان
mas-uul kastaaba xilka hayaabaha ku tartamo sida horumar gaarsin lahaa halka uu joogo waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa muwaadin kasta oo xilka uu hayo horumar gaarsiiya in la isu kala taago laguna amno maarayaha dekaduna wuxuu leeyahay in lagu dhiiriyo oo laiskala taago maxaan ku rahdaa la muujiyana wixii waxqabadee uu muujiyey waxaan ku soo koobayaa waxaasoo waxqabada iyo waxaasoo oradi wuxuu ka dhacayaa amarka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan haddaanu mas-uul kastaaba islaahay kolle gurru ku imanayaa maxaad qabatay nin walba iska seexan lahaa jibtiga iyo jeedadu isaga dhici lahaa sidaa weliba walba uu ka qaabo inuu madaxweynuhu ama xeer ha ahaato ama buur ha ahaato ama banan ha ahaato inuu soo mari doono waa inuu u sii diyaargaroobaa wixii uu qabtay iyo wixii hayaba taasna waxay caddaynaysaa in la xisaabtanu meesha yaallo in la xisaabtanu yaallo oo qofka waxa uu hayo lagu eegi doono hadduu wasiir yahay iyo hadduu maayar yahayba waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato madaxweynuhuna ha jiro ha joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wixii aan odhan lahaa inaan ku ammaani lahaa ambaan ku dhiirigeli lahaa runtii maareeyaha dekadda intii badneed waa la yidhi oo labadii maareeye iskaga dambeeyey degmada ayaa horta ku dhawaaqay laakiin waxaan halkan hortaada ka qirayaa madaxweyne 3 bilood gudahooda ayay ku dhammaatay goobtan aan fadhino ee intaa inkoo maariyuhu ka warbixinayey ee konteynerada loogu talagalay kabasitiga intaa leeg 3 bilood gudahood bahay ilaahay baa mahadle waxayna ku timid runtii sida uu sheegayay maareeyuhu wada shaqayntii ka jirtay amba gobolka ha noqoto amba degmada ha noqoto amba dekada dhexdeeda ha noqoto waxaan goobjoog u ahaa madaxweyne oon hortaada ka qirayaa maareeyaha oo aad moodo kabaha guurka uu gashan yahay iyo dharka uu gashan yahay oo wada leh sibri qaldadii ku dhex jira waa marna injineer buu ahaa marna maareeyo ahaa runtii aad baan ugu mahadnayaa uguna boorinayaa qofka muwaadinka waxa uu qabtay haddaan qirin waxba ma tihin waxaan kaloo halkani aan runtii aan jecelahay hortaada inaan uga mahadnaqo shaqaalihii la shaqaynayey sida maareeya ku-xigeenkiisa waxaa kale iyo shaqaalo hoosaadkii 4 saacadoodba ka shaqaynayay maruu joogay iyo maruu maqnaaba runtii oo maareeya ku-xigeen kusii shaqaynayay kuwaana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waqtigaas waa dhacdo aan ognahay inay ka dhacday dalkii laysku odhan jiray Soomaaliya cabdirasaaq maxamed ciyaal ayaa laba kalmood siinayaa magaaladan marsada berbera waa mid taariikhi ah oo ilaa nebi ciise ka hor 200 sannadood intaynu hayno ninkii la odhan jiray Strabo ee Greek ahaa uu ka qoray oo waqtigaa la odhan jiray Malago dadka degan badaqadana waxaa la odhan jiray Berberis ilaa maalintaa ilaa maanta marsay ahayd way koraysay maalinba inbay ahayd maalinbaa dowlaad lagaga soo qaadi jiray oo badba intoo marka ku istaago dowlaad lagaga soo qaadi jiray maalinna waxaa la sameeyey kii kaa intaa ingiriiska iyo laakiin dekad uu dhisto oo aan lagu dhisin tiin weliba qaranka ee dakhligeeda lagu dhisay oo inta leeg horta waxaa u horaysa tan waxa aan leeyahay waxaa jirtay waktigii maamuladii hore lacag wasaaradda finansku qabato oo la yidhaha harbortagas oo loo dhigi jiray in dekadda lagu dhiso wasaaradda maaliyadda hay jirtay basadka laguma dari jirin waxaa madaxweynaha iyo wasiirkii maaliyadda oo maanta fadhiya ka codsanaynaa si aynaan ugu baahan inaynu kaalmo shisheeyo oo dambe lagu dhiso dekedeena in harbortagaska wasaaradda maaliyadda u hayso oo hadba wixii lagu dhisayo dekadda ee mashruuca ay ku qabato iyada oo ay ugu
faraha madaxweyne la socotay iyo hadalladii xareyn waxaan ku soo gabagabeynayaa maareeyaha dekedda waxaan leeyahay marka aad dhamayso furitaan dambaahani doonee kaabad uu ku qoran yahay magaca madaxweynehoo leh kalar dahaba in uu furay salaan qaali inaga guddooma salaan dabadeed farxad weyn bay inoo tahay munaasabadda qaaliga ah aynu maanta isugu nimid iyo agaasinkan aad iyo aadka u safeeya ee ay samaysay dekedda berbera iyo dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolku waa munaasabad aad iyo aad runtii loogu farxo qaaliga mudane madaxweyne waxaa farxad weyn inoo ah horumarka ballaaran ee aad dalka ka qabatay intii talada dalka aad haysay oo ah muddo aad u kooban madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii ku guulaystay waxaan hore aynagu guulaysan isagoo dalka laxajeclo badan ka qaba oo ah mucaarid iyo muxaafidba inuu ku mideeyey dowladda uu maanta madaxda ka yahay oo ay hareeraha ka fadhiyaan oo ay wada shaqaynayaan oo aanay bah iyo qabiil iyo xisbi maanta ka lahayn dowladdanu oo runtii ah dhiirigelin iyo geesinimo ku tallaabsaday madaxweynaha maanta lahay mudane madaxweyne ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دبوينا شرفت لي هلك isugu yimid waa idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa waxaa farxad weyn noo ah inaanu maanta halka dekedii berbera joogno terminalka cusub insha allahu tacaala dekeda berbera waynu ognahay waa dekeda inoogu qaalisana geeska afrika ku taalla waa deked wax weyn qaranka iyo ummadda ugu fadhida waa deked taariikh ku leh geeska afrika ku leh waa deked aynan marnaba aynu ognahay doorka ay ka cayaarto horumarinta dalka iyo dadkeena ay ka cayaarto marka terminalka cusub maanta aad baan ugu faraxsanayn halkan inaan furro waa wax aynu qiimo iyo qaado weyn dalkeena iyo dadkeena ugu yeelayno insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay noqoto tii dalkeena iyo dadkeennaba anfacda terminalka kan iyo dekedda berbera waa waxa dalkeenna iyo dadkeennu uu meel ku gaari karo waa waxa ummadaha inagu daraya waa waxaynu geeska afrika ahmiyad weyn inagu siinaya marka qiimaha ay leedahay kordhinteeda ballaadhinteeda horumarinteeda waa wax dalka iyo dadkaba u ah wax weyno aynaan mar raba malaysan karaynin marka inaynu ballaadhinno inaynu kordhinno inaynu sii maalin walba intii ka sii badan ka sii ballaadhinna waa mid waajib inagu ah waa mid xil naga saaran yahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kuna hambaliyaynayaa maamulka dekedda berbera iyo intii ka howlgashaba iyo intii shaqada ka qabatayba aad baan ugu hambaliyaynayaa marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay nagu guuleeyo kulligeen horumarkeeda iyo manfaceeda iyo wanaaggeedana allahayna siiya dadkeena gaadhsiino marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii gesisama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan inaad tahay waa la saxay inaad tahay waa la saxay haddii gesisama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan inaad tahay waa la saxay inaad tahay waa la saxay siyaasiga caan baxo